هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا نقطة أما مارت قضبك قدام بيا أها مارتي خلاف كهدو يماده يسيد اللي وحلي ليه waxaa isna si wanaagsan inoogu balbalaarin doona Sheekh Umar Faaruq oo arrinkaas aad ugu xeel dheer wax badanna kullayto u soo taagnaa ama wax badan wax ka qabtay falyatafadal Sheekh Umar Faaruq bismillah walhamdulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa habibihi wa mustafaah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man walahu wa ba'd aad waxaan ugu faraxsanahay kafaa'ada ama say ugu qalmaan culamada mawduuca markii la magacaabayay nad waa lagu magacaabay laakiin tansiiqii loo sameeyey ama ruugcadaagii soo habeeyey ha noqoto ama culamadii ka qayb qaadatay ha noqotee muxaadaro isku samaysan buu noqday mawduuci marka qoladii takhdiidka samaysay iyo qorshihiiyo jaangooyada iyo culamadii ka qayb qaadatay ka hadashayba aad baan ugu mahadinaya sidoo kale idinka dadweynaha dhagaysiga wanaagsan oo aad dhagaysateen baan aad idinku mahadinaya haddaan taabta qaybtii laygu aadiyey ahayd nabadda haddii khilaaf dhaco sidii wax loo nabdin laha khilaafku waa wax min sunani ilxayaa nolosha ayuu ka mid yahay waxaa dadku iskhilaafaa heerka uu dhan yahay xiriirka ka dhexeeya labaan waxba ka dhexayn isma khilaafaan ilaa waxbaan ka dhexayn labaday wax ka dhexeeyaanna isma seegaan way isku dhacaan haddaba xiriirada basharka ka dhexeeya kan ugu weyn baa guurka ah laba isqabta laba isaga xaq weyn adduunka guudkiisa ma fuulaan ilaa qowlkiisa u maraga hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna in la yidhi haddaad dumarka tihiin ragga idin qaba dharkoodii baa tihiin haddaad tihiin raggana dumarkaad qabtaan baa u dhar tihiin marka calaaqada meesha taalla weynigeeda arag iskhilaafka halkaasuu ka dhalanayaa caadi wey khilaafkii markuu dhaca kadib diin baynu leenahay diinteennu waa diin kaamiloon waxba dhaafin maandhaafka iyo muranka qawska jaangooyo kama dambaysa ayay diinteennu u samaysay waxayna ka bilowday wacdiga magaca aad baad u maqasheen laakiin waxaan jeclahay galabta inaan idin xusuusiyo wacdi maxaa la yihaa waxaa weeye wacdi waxaa la yihaa wixii rabbi addoommada faray iyo wuxuu ka rabay baa lagu baraarujinaya wax cusub la keeni maayo ajmac aaya fii kitaabillah ilaa kitaabkiisa aayadda ugu kulmin badaneen khayr iyo shar dhaafin baa rabbi sidaa ugu sheegay wadalika qowlu rabbina tabaaraka wa tacaala ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i di lqurbaa saddex la ysfaray wey wayanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbagi saddex la diiday wey labadii saddexaad kadib yacidukum baa ku tahay ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbagi yacidukum rabbigiin baa idin wacdinaya waxaa laydin faray fuliya waxaa laydinka reebayna ka fogaada baa wacdigu yahay haddii rabbi idin wacdiya maxaa idinla gudboon wax kale meesha ma yaalaan lacallakum tadakaruun waa inaa waasantaan oo wacdoontaan haddaba rabbigeen baa ina wacdiyey sidii lagu xallin lahaa khilaafka qowskana si cad inoogu sheegay
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن هدي أي قبضوا هنقلتاك باللوضو يستأذق دردرتو عدك كلا ليسو إساقورنا كما مشوقساتو ولا يلا مركا هوشا ودا واللاتي تخافون نشوزهن وذاقي لما بي دردر يا حقرد محل يلاي فعذوهن وحلقي كوبادو قبل ولا وعدنا يا وعدنا يا أذاك هذا وهو حسوسنا يا خيرك هدي وهالله اللي فاتها وإيمانيسا وإذا جوك وناك يا مصلحة دنت وجود جريتا قولك إنه الاسم هاي فريدنا أي بدمنتا الرماس وحسوسنا يا فعذوهن تلابتي كوبادو هدي وقف مسلمة يا هاي لنا حسوسي ربي يا رسول وحي لقام مقلي لبدا مقفي آياتك حديثتي هدي الله شيء مسلم سأيتاي وحال رجيني يا إني يكون انتفاع ذو وعدك قادته واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن هدي قبل لي وعدك أنفع وايسين لي يلاي تلابت اللباد وحوي حلق واهجروهن في المضاجع قريف أما مظاهرات نبتقلية كوسا ليس بالا سميناي نبركا لو جيديناي حوغا انت الحبد مفاكسو عنت ميلهاس عشادي اي كعدي بحضي waxaa tiraahdaa عشان uma baahnaani kabar nabarkii loo duway sheekadii laga gooyay hasaabihii cashadeedii la iska riixay shan xabadood oo wajiga looga dhufto ugu daranta marka tilaabta labaad inay ku wacdoontaa la rajaynaya wahjuruhunna fil madaaji'i ku dara fil madaaji'i ma aha reerka uga tag oo hadday awalba ku dardarsanay golihiina aad u bannaysay sawna casnimadaada maaha muuqaalkaaga sare ha joogo laakiin wacaashiruuhunna bilmacruufidii baa xoogaa la adkaynaya wahjuruuhunna fi lmadaajic hadday labada anfici weydo maxaa saddexaynaya wadribuuhunna waa la tumayaa gabdhaha laakiin tumiddu yaya noqon mid dhiig daadisa laf dheer jabisa il ridda ilig faniinisa ama madoobaysa may dhaankaa la qabanaya waa la qandhuufanaya walow ayaan gabar soomaali daan la qandhuuftay dhag la maroojiyey waxba u qaadanay sidaan uga sharxay jiddo 20 sano ka hor marka laba isu xanaaqday labadaba xirtayday ahaayeen dhegta unbuu qabtay kolkuu dhegtii qabtay qosol baa labadoodii la isku daray iyagu markaa waa yasaayeen laakiin nuxrur eebbaa ku jiray nabadii ka dhacday waa la ogaa markaa wadribuuhunna xalkii saddexaad wey intaa waa iyagii dhexdooda arrintii marka intaasba waa ku xallismi weyday gacantay ka baxday arrintii noloshu waa sir ka dhaxaysa labada isqabta cid kale inay ogaataa u dan maaha laakiin haddii wacdi wax anfici waayey mudaaharaad nabadgelye wax anfici waayey dhagmaroojin iyo qandhuufo wax anfici weyday arrintii aqalkii ka baxday dibadday u baxday maxaa la yeelayaa lasii fogayn maaye gacmo geel jire kor looma mayre labadii qowsay labadan ka yimaadeen ayaa midba oday kama dambaysoo ruug caddaa laga soo qabanayo gabadha aabbaheed adeerkeed qaraabadeedii iyo wiilka qaraabadiisii kalsooni baa labadoodii laga qaaday intaan la howlgelin gabar yahay odagan adeerkaa wuxuu ku soo qaada ma qaadatay nacam war adigana odagan adeerkaa wuxuu ku soo qaada ma qaadatay nacam labadaasaynu magacaabaynaa dhaqankoodii bay u kuurgalayaan qallooca qofkii waday baa la ogaanayaa dabadeed waa la goobanaya labadii qoys baa goobanaysa haddii laakiin labadan la baxshay ay laba abukaata noqdaan oo kana gabadhii hawsheedii unbuu dhammaystiray
kana wiilka hawshiisii markaas xal dhalan maayo laakiin rabbigan wuxuu yaboohay labadaa la baxshay ama laba wakiil ku sheeg ama laba xakam garsoora ku sheeg qur-aanka labadaba wuu sheegay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahlihaa in yuriida islaaxan hadday labadan la baxshay nabadoon yihiin yuwafiq illaahu baynahumaa allah ku aadinaya guul baa dhalanaysa markaa mustawaha iyo awooddooduna xataa dalaaq bay gaaraysaa goortay u kurgalaan dhaqankoodiina ogaadaan hadday labadii yidhaahdaan kuwa kani kala dhinte waa u kala dhammaatay yaan dhiigoodu isku daadan ha la kala diro labadii wakiil baa furaysa waxba loogu soo noqon maayo waa la kala furaya marka xalku waa maxay kow waa wacdi labana waa dhabar ujeed iyo aamus saddexna waa garaac afarna laba garsooraa la bixinaya hadday labadaa garsoore daacad yihiinna ilaah baa abshirtii waafajinaya halkaasay ku dhammaanaysaa xalkii wabillaahi tawfiiq jasaaka allahu khayran sheekh cumar faaruuq laba daqiiq wax kabada kuma darsanin waad mahadsan tahay هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا